wax aanan soconaynin. dadka muuqaaladaas fiirsada markay guursadaan ayaa waxaa u bilaabanaya silsilad kale oo fashil iyo shallayta. intii aan mawduucan diyaarinay ayaan daawaday muuqaal nin ajnabi ah oo ka sheekaynayo dhibaatada uu ka soo maray daawashada muuqaaladaas. wuxuu yidhi, waxaan guursaday gabadhii aan jeclaa, laakiin haba yaraatee dareenkii ayaa i kici waayey. waxaa dhimatay maskaxdiisa qaybta dareenka. wuxuu u bartay muuqaallo kala duwan, daawashada jidhka dumar la soo xulay, meeg ab loo mariyey, wax jidhka ifinaya lagu malaasay, cod aanan jirin loo yeelay. niyaddiisa sidaas ayaa ku barogaraamsanayd. haddaba gabadhii uma dhadhamayso. wuxuu raadin wixii beentaha ee uu arki jiray oo ah wax ka fog nolosha dhabta. sidoo kale dumarka fiirsada muuqaaladaas arrinkan oo kale ayaa ku dhacaya iyagana. waxa ugu halisan ee ay ka cabanayaan dadka xaaslayaasha rag iyo dumar ee musiibadan fiirsado waa isbarbardhigga noloshooda dhinaca sariirta iyo muuqaaladii galmada ahaa ee ay arkeen. marka koowaad waxaa fiican inaan ogaanno muuqaaladaas in ay soo saareen shirkada si ganacsi ah. wixii ganacsi ahna waa la qurxiyaa, waa la dhaldhalaaliyaa si ka fog waaqica dhabta. ninkan hadalkiisa kor ku soo xusay wuxuu yidhi, guurkaygii fashil iyo hin ayuu ku dhammaaday. gabadhiina waan kala tagnay, laakiin kadib markaan caqligayga dib u soo ceshaday oo aan go'aan qaatay oo aan mar labaad guursaday, maskaxdaydiina ka baxeen muuqaaladii xumaa, ayay ii bilaabatay inaan dareemo nolosha dhabta. dumar badan oo ah kuwa jira muuqaaladaas oo ka soo baxay godkaas mugdiga ayaa ayagoo ooyaya warbaahinta maraykanka uga warramay xaqiiqada beenta ee la socota muuqaalada galmada, sida codka beenta, neef gurka aanan jirin oo ninta la sameeyey, qosalka beenta. waxay raaciyeen in dumarka iyo ragga arrinkaas sameeyo ay ku nool yihiin nolol jaxiimaa, codadka la maqlana ay yihiin wax la dorsaaray oo aanan jirin. haddaba sidee qofku uga istaagi karaa fiirsashada halaagaas? waxaa fiican marka hore inaan qiimayn ku samayno ama imtixaan yar xaaladda qofka inta aanan sheegin waddada ka istaagidda. waxaa laga yaabaa in qofku isku qanciyo in waxaanay yihiin wax sahlan markuu go'aansadan iska dayn doono, waana arrin xaqiiqada ka fog. khabiir ku takhasusay xiriirka qoyska ayaa sameeyey imtixaan ka kooban dhowr su'aalood oo uu ku caawinayo dadka ugu imaado xaruntiisa ee rabo inay ka istaagaan musiibadan. bal fiiri, waa cudur rasmi ah in qofku isbitaal u aado siduu uga istaagi lahaa daawashada muuqaalada galmada. imtixaanku wuxuu ka kooban yahay dhowr su'aalood, wuxuuna qiyaasayaa heerka qofka uu joogo, sida in aad u baahan tahay waqti dheer si dareenkaada u kaco halaaga. waxaa ku xiga heerka in qofku inta badan uu ku fikiro rabitaanka daawashada muuqaaladaas, niyaddiisana ku jirto arrinkaas. heerka ku xiga oo ah bilowga halaaga, oo ah in qofku fiirsashada muuqaaladaas uu aad u dhex galo, habeen iyo maalina ku fikiro. marxaladdaas qofku wuxuu gaarayaa heer uu iska waayo dareenka waxaan in ay dembi yihiin iyo walwalka. sidii qof daawanaya filim dokumentari ah ayuu u noqon, taasoo ah in waxaan ay u noqdeen wax dabiici ah oo noloshiisa ka mid ah. heer wuxuu gaarayaa uuba u arko daawashada in naxadinta iyo murugada uga baxo, sida qofka markii soo wajahdo murug iyo arrin adag in uu u cararo daawashada muuqaaladaas kadibna dareemo deganaan. haddaba marxaladdaas qofkii gaara waxaa gubtay oo eber noqday dareenkiisii dabiiciga ahaa, waxaa dambas noqday qofnimadiisii. laakiin fursadda in uu dib u soo nooleeyo weli way furan tahay, oo ah in uu ilaahay u noqdo, inuu alla gacmaha u taagto, in uu ilin iyo oohin afka furto. ilaahay toobadda waa aqbalaa in aad go'aan adag qaadato oo aad qirata halaagga iyo xumaanta nolosha aad ku jirto. ilaah weydiisa inuu kugu gacan galo ka bixidda godkaas madow. يا صريخ المطلوبين، يا صريخ المطلوبين، يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وكربي، فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي، ترى ما نزل بي وبأصحابي. haddaba qodobadan raac si aad uga istaagto daawashada muuqaaladaas. qodobka koowaad,
in aad fadhiisata meel deggan keliga si rasmi aan isaga dhaadhiciso in waxaan ay yihiin xaaraan, in ay tahay macsi aad u weyn, in aad wax ilaahay reebay fiirsanayso. isweydii, anigoo muslim ah oo 5 salaadood tukanayo, sideen u fiirsan muuqaallo galmaa oo ay sameeyeen dadka kuwa ugu xun? dadka sameeya muuqaaladan xitaa karaamay ixtiraam kuma lahan waddamadaas galbeedka. waa dad layasa oo aad u xun. haddaba isweydii, anigoo ilaahay muslimiga dhigay i karaameeyey, sideen waxaan u fiirsan? maskaxdaada dib uga shaqaysii. qodobka labaad, laabidda aragga. waxaa laga yaabaa in markii lagu dhaho aragga ka laab waxa xun, in arrinku kula yahay wax iska caadiya ama micno guud wax sahlan, aragga laab. laakiin aragga inaad ka laabto xumaanta waxaa ku jira faa'iido aad u weyn. kelmadda zakaa maxaa laga wadaa? waa siyaado iyo barako. sakada qofku uu bixinayo waa barako, xoolihiisa ilaahay ayaa u barakaynayo. haddaba aayadduu ilaahay uga hadlay laabidda aragga, bal micnaheeda wax yar aan si fiican u dhuuxno. ilaahay wuxuu yidhi asagoo mu'miniinta ku boorinaya inay aragga laabaan, kuna soo dejiye aayaddaas rasuulka muxamede inuu mu'miniinta u sheego. aayadda oo ah qul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun. waxaan ula jeednaa kelmadda daalika askaa lahum. askaa u baraka badan, u faa'iido badan. ilaahay micno la'aan iskama sheegin kelmadda zakaa. waxaa la ogaaday daawashada muuqaaladaas maskaxda in ay gubaan, burburiyaan, dambas ka dhigaan. laakiin waxaa roob u ah oo ubax iyo doog ka soo bixinayo ka istaagidda fiirinta wixii ilaahay xarrimay. azakaa faa'iido. xitaa waxaa la dhahaa ardada iskoolada dhigto, jaamacada, qof kastoo wax baranayo, haddii aragga uu ka laabo wixii xun oo ilaahay xarrimay, waxaa barakoobaya, fahankiisana uu kacayaa, ama fahan fiican ayuu ka helayaa. waxa maskaxdaada dib u dhalinayo waa inaad ka istaagto fiirsashada waxaas. qodobkaas ugu muhiimsan waddada ka istaagidda daawashada galmada. markaan ka soo tagno, aan u imaanno tijaabooyin dad ka istaagay iyo takhaatiir iyo khubaro ku takhasustay ay sameeyeen, oo ah sidii qofku uga istaagi lahaa daawashada aafadaas. tallaabada ugu horraysa ka caafimidda daawashada muuqaalada xunxun waxay u baahan tahay waqti, mas'uuliyad, run iyo go'aan adag. kitaab uu qoray nin lagu magacaabo Larry Wondi oo uu uga hadlayo khatarta daawashada muuqaalada xunxun, uguna magac daray dabinka daawashada filimada xunxun, wuxuu yidhi qofka markuu ku fikiro ka istaagidda daawashada muuqaaladaas, maskaxdiisa waxaa ku loolami 2 hadal oo ah mid leh waxaan waa khatar ee iska daa daawashadooda, iyo mid leh maya, waa wax dareen raaxa la keenaya ee ha ka istaagina daawo. wuxuu leeyahay qoraagu, labadaas hadal qofkii aanan go'aan adag lahayn waxay ku keeni in uu fashilmo. haddaba labadaas hadal ama labadaas fikir ee maskaxdaada ku jira isburinaya waxaa looga takhallusi karaa in aad dejiso istaraatiijiyaddan soo socoto, aad raacdana si aad uga badbaado insha allah. soo qaado warqad iyo qalin, kadibna diiwaan geli waxyaabaha xunxun ee aad ka dhaxli karto daawashada muuqaaladaas, sida murugta, caajiska, fashilka, allacaasinta, maskax gubidda. kadibna warqaddaas meel dhig aad ka arki karto, ama ku kaydi meel aad ugu yaraan dhowr mar arki karto maalintii, si aad u xasuusato mar waliba xumaanta arrinkaas. sidoo kale soo qaado warqad kale, kuna qor faa'iidooyinka aad helayso ka istaagidda daawashada muuqaalada xunxun, sida akhlaaqda wanaagsan, alla ka baqidda, caafimaadka, firfircoonida. labadaas warqadood ee ah midda aad ku qortay natiijada xun ee aad ka dhaxlayso daawashada, iyo tan kale ee ah natiijada wanaagsan ka istaagidda daawashada. ka dhig istaraatiijiyad ujeed fog leh oo aad uga istaagayso daawashada halaagga filimada galmada. tallaabada labaad oo ah mid camali ah ama ficil ah. 1. bii'ada. in aad ka baxdo bii'ada kuu kallifayso daawashada, waxaana ugu horrayso cidlada. in markuu ku qabto dareenka ah daawashada, aad ka baxdo cidlada ood u tagto dad
sida inaad la sheekaysato xataa inaad muran gasho si dareenka kaaga baxo ayaa kaaga faa'iido badan qodobka ugu weyn ee keenaya in qofku daawado waa keli ahaanshiyaha haddii dad kula joogaan waxaa yar in aad daawato haddaba haddii ay saaxiibada yihiin kuwo aad si wada jir ah u daawataan waxaa la gaaray wakhtigii aad beddeli lahayd saaxiibadaas noloshaada diintaada karaamadaada caafimaadkaada dadnimadaada ayaa ka fiican saaxiibadaas ama inaad si wada jira u qaadaan waddada wanaagga weliba aad ayay u fiican tahay in aad si wada jir ah ugu heshiisaan hanuunka haddii ay jiraan cajalado c d ama mobaylka ay kugu kaydsan yihiin in aad ka takhallusta muuqaaladaas burburisana wax walba oo ku soo xasuusinayo noloshaas mugdiga ka takhallus waxaa lagu talinayaa in aad ku beddesho samaynta sida isboortiskoo kale in aad orado socoto kubad ciyaarto dhaqdhaqaaqdo waxaa fiican in waalidiintu ay la socdaan xaaladda carruurta 15 ilaa 19 u dhaxaysa dhallinyaradaas waa marxaladda ugu daran ee inta badan canugu raadiyo wax dareenkiisa kicinayo noloshuna ay u tahay bilow iyo waxyaabaha inuu baaro inuu canugu qolka isku soo xidho markuu kombiyuutarka ama mobaylka isticmaalayo waa arrin shaki keeni karo canugaada intuu halaagsami lahaa gacan ku sii in uusan waxaas baranin qodobka ugu muhiimsan ilaahay wuxuu noo furay guur xalaal ah oo qofka dareenkiisa si xalaala u gudan karo wiil iyo gabarba guurku waa wax aad muhiim u ah waana arrin fiican rasuulka dhallinyarada wuxuu kula dardaarmi jiray in ay haddii awoodaan wax guurka lagu bixinayee yar in ay guursadaan qofkii awoodo waxa yar ee lagu bixinaya arooska ha guursado man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj guurka xalaasha ee labada qof is-ixtiraamayaan is-jeclaanayaan waa waddada ugu horraysa ee liibaanta adduunkan dhinac walba noloshaadu waxay